السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سلامية وحان سلامية سلامتها قرآن كحسي كسور دوادا يوتيوب كيني بدبادة أكشن وغبرتين إن أنا هالك يسوق لنا فرصة الشقة يو opportunities كردون كسب هيدها عالمية كوقرامة بدوي iyo community gaar kale leeyahay ku lug leh sidii bulshada ay ugu raadin lahaayeen ama uga heli lahaayeen dad qualified ah oo shaqadooda u qaban kara. maanta halka waxaan doonayaa insha Allah dhowr shaqo inaan idin ka ogeysiiyo oo aad iyo aad u muhiim ah. shaqooyinka maanta rabay inaan idin share gareeyo ee la soo galiyay linkiska qaran jobs waxa kamid ah waliba aan badanaa inta badan waxa soo galiya shaqooyinka technically la qaban karo oo dhalinyaro badan oo jaamacadaha ka soo baxday ay apply gareyn karaan si marka loo helo marka chance wanaagsan oo dhiirigeliya dadka jaamacadaha ka soo baxay aqoontana soo bartay. hay'adda loo yaqaano maxaa la yiraahdaa Paru Foundation oo garanaysa dhamaantiin Soomaaliland ka gashay meel kala duwan caalamka kamid ah waxay rabtaa ICT teacher oo sheekh bal laga rabaa magaalada sheekh qof ICT ga macallin ICT bay u baahan tahay oo waxaan looga baahan yahay magaalada sheekh ama degmada sheekh gobolka saaxil. shaqada iyada ah sida caadiga kulli waan garan karnaayo dee qof ICT ga dhigaa inaguma cusba ardayda dad waa loo soo dhigay macallin badan baa soo dhigtay dad badan oo khibrad leh baa jira marka qofkii shaqada awoodi karayo ICT ga go to and visit waxaad booqataa qaran jobs booqo location waa sheekh at the same time waana 1 year shaqadaas waa fixed term weeyaan waajibaad buu leeyahay waajibaadkaasina kulli uu ku qoran yahay wixii job description ah ama responsibility looga baahan yahay ama duties-na waa qoran yihiin. aqoonta marka laga hadlayo waxa looga baahan yahay qofkaas inuu haado qof degree xagga bachelor degree waa inuu haado computer science ka computer engineering ka ama any other related discipline waa inuu haystaa 3 ilaa 6 sano oo waayo-aragnimo dhinaca dhigista ICT ga Excel ka Excel ka iyo O level kaba ama A level kaba syllabus kana waa inuu ku shaqeyn karayaa repairing ka maintaining ka computer ka iyo networks ka waa inuu waxyaabo badan ku wanaagsan yahay muhiim xagga Ingiriisiga waa inuu aad ugu fiican yahay ku hadalka iyo qoraalkaba waa inuu qofkaasi ahaan kara qof tagi kara joogi kara sheekh meesha la yiraahdo must be willing to teach in sheekh inuu qofkaasi deegaanka uu diyaar u yahay ku noolaado xilliga wax dhigista waa laga maarmaan. marka shaqadaas sida insha Allah xareyso try best and visit waxaad booqataa maxaa la yiraahdaa Allahumma salli ala Muhammad boo qaran jobs. shaqadan waxay dhacaysaa 3 November bay dhacaysaa hadii Ilaahay ka dhigo 3 November 2022 kay dhacaysaa shaqadaasi. therefore waxa loo baahan yahay inaad markaa aad shaqada markaa try garayso inaad xareyso deadline-kaas ka hor Allahumma salli ala Muhammad si aad shaqada u xareyso waxa looga baahan yahay CV-gaaga oo PDF file ku jira ku soo dirbalay email-ka loo yaqaano recruiting.sl@farufoundation.org oo aad si toos uga heli karto maxaa la yiraahdaa qaran jobs aad toos uga heli karto. sidoo kale linkiska shaqadana waan soo gelin doonaa dilaa ka dhigo badbaada action maxaa la qaybta comment-ka qaybta ugu sareysa soo gelin insha Allah. waxyaabaha looga baahan yahay qofka waxa kamid ah requirements looga baahan kamid ah inuu CV-giisa iyo conference-ka soo qorto waxyaabahaas oo PDF ka soo dhigaya instruction baa lagu siiyay requirement baa ku qoran maxaa qaran jobs raac oo follow garee dilaa ka dhigo. shaqada kale aan doonayna inaan idin sheego waxa weeyaan waxaa soo xayisiisay company loo yaqaano Hon Cement Factory waa Berbera filaya I think so Berbera Somaliland Hon Cement Factory I think waa qaybtii warshada sibirka shaqadan iyada laftigeeda deadline-keedu waa 6 November 2022 bay dhacaysaa waxaa la soo galiyay 16kii bisha. shaqadan waxaa loo baahan dhowr shaqaale loo baahan yahay oo Hon Cement Factory u baahan tahay. shaqooyinka waxaa kamid ah dad si qaar guud u dul maro waxaa loo baahan yahay accountant qof ah xisaabiye loo baahan yahay xisaabiyaha waad garan kartaa qofka jaamacadda ka soo baxay qaybta accounting-ka ee loo baahan yahay at the same time responsibilities waa la iska qaadan qofka finance-ka inuu markaa
wuxuu sameeyaa perform financial management duties including generating financial data, compiling and submitting reports, analyzing industry trends and assessing financial health of the company. waa very simple. shaqada dadkii accounting soo bartay wada garanayaan. wax badan baa looga baahan yahay in budgetka iyo forecastka waxba sameeyo, publish financial statement waa inuu diyaar gareeyo si quarterly bangiga inuu la socdo dhaqaaqiisa, cashuuraha kale inuu isku habeeyo, balance sheetka wixii la halmaala. I think dadka finance ka yaqaana way aad u fahmayaan. waxa looga baahan yahay aqoon ahaana maxaa BS dhinaca accounting loo baahan yahay ama wixii la xiriira ama master's degree in somehow in a bonus and experience fara badan waa leeyahay over 10 years iyo wixii la halmaala. shaqadan deadline-keedu waa 6 November insha Allah la xareeyo. qofka xareyn kara shaqeeyada kala fudud baa jirta iyaduna ay isla company-ga laftigeeda Hon Cement Factory u baahan yihiin. waxa kamid ah deewaad garan kartaa waa shaqaad iska fudud oo waliba hablo aad u sii qaban karaan. waa receptionist baa loo baahan yahay. qof receptionist ah ayaa loo baahan yahay. iyada laftigeedu 6 November baa shaqaas dhacaysa. receptionist waa qof xaq hor fadhiista, soo dhaweynta, hospitaalka, marxabaysiinta, raaligelinta, farxadeynta, ka warramida company-ga, la macaamilka macaamiisha, wajhi furnaanta. wax badan baa loo baahan yahay. waxaana loo baahan yahay qof energetic ah, qualified ah, receptionist ah, kaasoo si efficient ah u organize gareyn kara maxaa la yiraahdaa hawlaha secretariat support-ka company-ga Hon Cement Factory. aqoon ahaan waxa looga baahan yahay qofka university ama college degree as asset looga baahan yahay. waa inuu familiarity with the phone systems-ka habka loo telefoonada kale looga shaqeysiyo, waa inuu yaqaanaa isku xirka khadka, gudbinta khadka, wixii la halmaalo dhan. office-ka iyo software-da la xiriira waa inuu yaqaanaa. 2 sano waa inuu leeyahay boss uu ku soo shaqeeyay somehow. shaqadan qofku CV-giisa iyo copy-diisa wuxuu ku dirayaa info@honcement.com ayuu ku dirayaa. marka booqo linkiskana insha Allah waan soo dhigayaa hadii la ka dhigo qaybta ayada ah. meelaha kale ay u baahan yihiin اللهم صل على محمد. Hon Cement Factory waxa kale u baahan yihiin shaqooyinka ay kamid yihiin project geologist baa loo baahan yahay iyo horticulturist baa loo baahan yahay. shaqooyinkan dadka kale aqoonta badan leh way garan karaan. marka insha Allah shaqooyinka hala balay garayo, hala dadaalo, aad halo dadaalo. shaqooyinka kale ee ka jira meelaha kale ee ka baxsan Soomaaliland waxa kamid ah hay'adda loo yaqaan CTG waxay u baahan tahay project engineer. 3 boos baa looga baahan yahay. Puntland baa looga baahan yahay. waa engineer, waa project engineers. sidoo kale last mile mobile solution LMMS baa looga baahan yahay. baydhabo meesha loo yaqaano Wellfish baa u baahan trial. insha Allah shaqadana hala booqdo baalkii qaran jobs. shaqooyinka isku day inaad xareyso, qofkii aqoonteeda lahow meesha doonto ugu tag. anagu waxaanu ka caawin karnaa inaanu service very limited aan ka qaadno, inaanu CV-ga kula hagaajino. shaqada technical waxa lagu weydiin karo aanu ku sii sheegno somehow, iyo wixii lagu weydiin karo probability ahaan boosaskan dadka maxaa interview-ga what kind of questions baa lagu weydiin karaa inaanu ka caawin karnaa hadii la ka dhigo. laakiin maaha 100% wax la hubo inaan su'aashii barta taale aan ku sheegno, laakiin waa cilmi guud in general inaan ka caawino insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لايك فولو انت بصوصي ان شاء الله channel. السلام عليكم.